السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada casharantii taxanaha ee accountiga ahaa oo chapter 6 iyo sidii loo xisaabinayay inventory-ga. xeerar badan baan soo sheegnay markaasi oo 3 xeer oo wada socda oo assumptions ah iyo muxuu ahaa xeerkan ka duwanaa oo specific identification loo leeyahay oo shirkadu markay isticmaalayaan ay ahaa markaa waxay iibinayaan uu yahay inventory-ga iibinayaan high cost markuu yahay oo shay gaari oo kale iyo shay qaali ah uu yahay oo kale si fududna ay ku tirin karaan kuna kala garan karaan shayga la iibiyay. inventory-goodu una badnayna markaas ayaa la isticmaalaa. marka laakiin inventory u bato oo shirkadu aysan awoodin in ay kala garato inventory-guna uu qaybo kala duwan uu yeesho, mararkaas oo kale ayay adkaanaysaa in la isticmaalo xeerkaas hore. waxaana la isticmaalayaa cost flow assumptions xeerasha la yiraahdo oo 3 xeer ah. first in first out waa xeerka ugu horeeya oo loo soo gaabiyo FIFO, sidoo kale last in first out oo loo soo gaabiyo LIFO. xeerka xigo oo average-ka. xeerashaas marka kaga shaqeynayno daatadana la siiyay. daatadan waxay lahayd xagan waa explanation-kii, xagan waa date-kii, inta unit ee la soo iibsaday iyo halkii unit ba cost-iga uu nagu joogo, iyo marka la isku dhufto unitiska iyo unit cost-iga total cost-iga soo baxaya. unit-yada xagana la isku geenayaa waxaa loo yaqaanaa total unit available for sale oo 1000 ah ayaan haysanay. dhanka kale markii la isku wada dhufto oo unit walba cost-igiisa lagu dhufto waxaan haysanay total cost available, total unit cost available for sale oo 12 ah ayaan haysanay 12,000. waxaa layna siiyay tusaalaha halkan waa markaa waa given-kani waxaa layna siiyay wax la yiraahdo unities in ending inventory, unit-yada kusoo haray store-ka kusoo haray oo 450 markaasi lagu qiyaasay. hadda kan waa lagu siiyay laakiin waxaa dhici in la dhacdo in iib la sameeyo oo agaabtii la iibiyo, dadkii macaamiisha laga iibiyo kadibna hadhow la tiriyo. laakiin hadda kan maanad waxba soo tirin, hadda waa lagu siiyay meel laga soo tiriyo ma jirto. purchases baa laynoo sheegay laakiin wax sale oon iibino kunkii aan ka iibino laynooma sheegin. maadaama laynoo sheegin dukaankeenii baan tagnay kadibna waxaan soo sameynay tirin baan sameynay store-keena. markaan tagnay waxaan ku aragnay 450 iibkii. marka adaa laga rabaa haddii lagu siiyo ending inventory inaad soo halooto iibka maxaa la iibiyay. halkan waxaa lagu yiri markaas 450 unbaad ka jiri kunkii waxa la iibiyo wuxuu noqonayaa 550. marka bal inagoo marka daatadaas inagoo raacayna ayaan isticmaalaynaa xeerashan. marka first in first out oo FIFO loo soo gaabiyo ayaan ku horeynaynaa. marka the first in first out method assumes that waxay kasoo qaadaysaa in waxyaabihii badeecada kuwii u dambeeyay kuwii u horeeyay la soo iibiyay ayaa habuleeyay the first to be sold, kuwa ugu horeeyay la iibinay. xeerkan markaas aasuu leeyahay maadaama oo badeecada qofku soo iibsanayo aysan isku cost ahayn oo time-ku isbedelo, price-ka shayga la siinayo iyo cost-giisa uu isbedelayo. waxaa laga yaabaa in bishan aad soo iibsato dhowr badeecadood. tusaale ahaan haddaan dib ku celiyo badeecadana la soo iibsaday beginning inventory-ga ahayd waxay nagu joogtay unit cost-geedu 10 buu nagu joogay suuqa markii la eego. waa bisha January 1
abriil markii la yimiday haddii 200 lasoo iibsaday 200 costigii wuu isbedelay suuqii 11 buu noqday dhanka kale bisha August 300 baan soo iibsanay suuqiina wuu isbedelay bishii gudaheedii ayuu isbedelay oo 12 buu noqday dhowr bilood gudahood markaa isku bedelay November markii la yimiday 400 baan soo iibsanay suuqiina unit costigiisii waa uu bedelan yahay oo 13 buu noqday hadaba shirkadu marka ay isticmaalayso marka ay iibinayso badeecadan kunka ah kaba soo qaad waaba TV ka soo qaad oo TV $10 ma jiro laakiin ka soo qaad waaba TV-yaba marka shirkadii waxay sameynaysaa waxay isweydiinaysaa markii ay qof macaamiil u yimaado oo wax ka iibsado ayaa waxay isweydiinaysaa kaad ka iibisay ku ahaa TV-gad ka iibisay tusaale ahaan 5 xabo ka iibsaday 5tii xabo shirkadu waxay isweydiinaysaa ma 10kii ma 100kii maxaan ka wadaa 100kii xabo ee ugu horeeyay min $10 ee ugu joogay ayaan 5 kamid ka iibinay mise 400 tii u dambeysay ee ahayd 13 price-keedu ama unit costiga 13 ahaa ayaan ka iibinay marka haddaad kan ka dhigto oo 400 tan aad ka jarto markaasi kaba soo qaadba 10 ama qaadan 50 xabo ka qaatay 50kii xabo aad kan ka jarto costigiisu 13 buu noqonayaa sidoo kale haddaad tiraahdo maykii ugu horeeyay say u kala horeeyay manu dhamaynaya TV-yada oo beginning inventory aad ka iibiso 100ka aad 50 xabo ka iibiso $10 baa ugu dhufanaysaa unit costigi hadaba xeerkani waxa uu leeyahay first in first outku agaabtii ka horeysay baa la iibiyaa agaabtii ka horeysay ayaa la iibiyaa waana tan ku leeyahay fiifadu sideedaba waxay sax ku tahay habka wax iibka ama physical flow of merchandise marka laga hadlayo oo maxaa laga wadaa it generally is good business practice to sell the oldest units first waxa iska fiican oo ganacsiga habsami maaragtay u horseedi kartaa in ay shirkadu mar walba iibiso agaabtii ka horeysay inay iibiso taas ayaa fiican marka fiifada marka la eego de xeerkaas ay waafaqsan tahay waa xeer marka suuqa si caadi oo de standard dadku wada yaqaanaan ganacsatayaashu ay ku wada xisaabtamaan shayba shay uu ka horeeyay inay iibiyaan kadibna ay safar aadaan taas ayay waafaqsan tahay marka haddaan ku noqono dhaatadeena waxayna leedahay fiifadu haddii wax la iibinayo waxaa laga soo bilaabayaa xaggaas hore haddii 100 xabo 150 xabo laynaga iibiyay 100 waa kaasi oo $10 baan ugu dhufanaynaa kontak kalena bishan kale waxaan soo iibinay baan soo gudbaynaa oo abriil ah inagoo August aan soo aadi karinin waa inaan abriil labadeeda 100 waa inaan ka jaraabo markaasi isagu leeyahay kontanka oo kontankaasi oo aan ku daro kuwan iibinay maadaama 150 iibinay waxa soo hadhay 150 ka soo hadhana aan ka dhigno ending inventory aan ku daro marka sidaas uu xeerkani u soconaya the costs of earliest goods purchased are the first to be recognized in determining cost of goods sold cost of goods sold marka la aqoonsanayo wuxuu leeyahay agaabtii markii hore la iibiyay ayaa marka la aqoonsanaya cost of goods sold gooda ayaa la aqoonsanaya and this doesn't necessarily mean the oldest units are sold first, but the costs of the oldest units are recognized first. marka tii horan badaba socda isaguna unitskii ugu horeeyay intan uu kulli waa in muhiima wuxuu marka in leeyahay waxa la iibinayay macnaheedu hadda tan lagama wado in uu yahay unitskii ugu horeeyay xagga unitka lagama wado xagga unitka sababtoo TV-yadu waa isku midba oo TV-gan boqolka unit ka soo qaadnay iyo TV-gan bisha u dambeeyaan soo iibinay 400 unit aan ka soo qaadnay haddii weight ahaan la yiraahdo dhamaantood waa isku mid laakiin costiga bay ku kala duwan yihiin maadaama isku mid yihiin de ma garanayno kii markii hore yimiday
iyo kii markii u dambeysay bishii November yimid ma garanayna sababtoo waa isku model waa isku wada mid waa wax ay ku kala duwan yihiin male hadaba halkan wuxuu ku leeyahay costigan un baa la aqoonsanayaa mooyeen oo la oranayaa midba midka ku horeeyay costigiisa hal aqoonsade laakiin unit ahaan wax lagu kala garanayo ma jiro oo labada shay markaasi waa isku mid baba dhamaantood waxaan soo iibinay wax number ay model ay ku kala duwan yihiin ma jiro marka wuxuu ku leeyahay waxa la aqoonsanayaa waa costigi hamoodin in unit costigi laftiisa la aqoonsanayo boqolkan xabba laftooda intii meel la dhigo gees ah in la ilaashanayo hamoodin dhamaan TV-yada waa la isdhaxdhigay kadibna waxa la leeyahay TV-yadii horeeyay soo iibinay misay ahaayeen 100,000 bay ahaayeen boqolkii costigooda misoo ay unit costigooda tempo marka 10kii baa loogu dhufanayaa waxa laga yaabaa haddii unit ahaan iyo fiscal ahaan la eego TV-ga in 400 TV-yadii u dambeeyay la soo iibiyay inay lagaba saaro 100ka laga yaabaa marka taas macnaheedu waxa laga wadaa xagga costiga baa lagu xisaabtamayaa 10% marka hadii costiga 10% lagu xisaabtamayo unit costiga waxay ka dhigan tahay beginning inventory ayuu ahaa hadii laakiin difference uu jiro ay kala duwan yihiin noocaasi looma xisaabin karayo marka waa inta inoo sheegayay marka wuxuu ku leeyahay ku khaldamin in unit costigi ugu horeeyay isla laftiisa la taaban karo oo la garanayo ku ahaa ma xeerashan marina ayaa assumptions oo ka soo qaadaba marka waxa la oranayaa oo TV-yada la iswada dhaxkayna dhamaantood store-kii la keeno kadibna hal laga soo qaado kunkii TV-yaga meesha iswada dhex yaalaan kii ugu horeeyay laga soo qaaday in la iibiyo ka ugu horeeyay unit costigiisa ayuu kaga duwan yahay kuwa ka dambeeya saas lagu garanayaa marka wuxuu leeyahay haddaan dee tusaale yar bixino hardware store-kan shirkadan oo kale waxaa laga yaabaa inay isticmaalayso hal shay oo isku mid ah in ay isticmaalayso sida hangariskaas ay iibso kale marka dee hangariskii markay iibiso shirkadani maadaama ay isku wada mid yihiin haddii 1,000 xabba ay ka haysato dee 1,000 xabba shirkadu hadhow dee kay hadda bixisay toos uma garanaysa inuu yahay kii ugu horeeyay kii u dambeeyay laakiin waxay ka soo qaadaysaa kii ugu horeeyay costigiisii ayay ka soo qaadaysaa sababtoo oo laba shay oo hal shay oo isku mid ah hadaba first in first out ki hadda iibkii ayaa la sameynayaa inoo datadii la inoo soo qaaday mar walba datan way nala soconaysaa cost of goods available for sale datada waxay leedahay agaabta diyaarka oo in la iibiyay qiimaha inagu joogta ayaa halkan lagu ogaanayeen horaan soo aragnay datada waa tii hore 12,000 bay inagu joogtay laba shay baa kala gaara waxa la yiraahdo cost of goods available for sale iyo sidoo kale unities available for sale oo kunka unit aan marka laga eego waa kunka marka laga eego xagga cost ahaana xagga unitka marka laga eego waxa way inta unit ee diyaarka inoo ah inaan iibino iyo dhanka kale oo ah inta unit ee diyaar inoo ah inaan iibino costiga ay inagu joogaan intaas weeye marka 12,000 buu costigaasi inagu joogaa hadaba si aan u soo laba shay baa la raadinaya marka xeerashan la isticmaalayo laba shay baa la raadiyaa ending inventory wax la yiraahdo oo ah badeecada inoo taalaay maxay tahay store-ka taalaay iyo wax la yiraahdo cost of goods sold agaabta la iibiyay qiimaheedii inaan soo saarno taas ayaa maaragtay labada step ayaa la marayaa maadaama labadaas la rabo oo waxaan sameynaynaa xaggan waxaa la siiyay ending inventory waa step 1ka marmarka qaar waxaa lagu siinayaa cost of goods sold haddii cost of goods sold lagu siiyo lagu yiraahdo agaabtii la iibiyo qiimaheedii waa intaas adiga oon tegin store-ka adoon tegin waxaad noo sheegtaa agaabta taala qiimaheeda waxaad sameynaysaa cost of agaabtan la iibiyo costigeeda lagu siiyay baad ka jaraysaa costigii guud ee agaabta inagu joogtay kadibna markaad ka jirtid waxa soo haraa noqonaya costiga agaabta store-ka inoo taala dhanka kale sidaas store markeeda haddii ending inventory lagu siiyo ending inventory lagu siiyay costigiisa ayaad ka jaraysaa costigii guud kadibna cost of goods sold ayaad saa ku soo helaysaa bal markan waxaa la siiyay marka ending inventory baa la siiyay waxaa la naga qariyay cost of goods sold agaabta la iibiyay qiimaheedii baa laga qariyay laakiin waxaana loo sheegay agaabta store-ka taala intii la soo tiriyay
ayaa la ogaaday agaabta scoreka taalla inta ay tahay. marka wixii storeka yaalla markaad soo ogaatid costigiisa haddana ogaan costigiisa unit costigiisa ayaad ku dhufanaysaa, kadibna total cost baa kusoo bixi. total costiga ending inventoryga ku yaala ayaad ka jaraysaa total costigii guud markii hore 12,000 balada. markaa halkan fiiri November 27 November 27 waa ending inventoryga mar walba first in first out waa kan ku sheegay. wuxuu yiraahdaa shayga ku horeeyay ayaa la iibinaya. marka ending inventorygeeda mar walba qaybta dambe noqonaya. arintaas waa muhiim, qaybta dambe ayuu mar walba noqonaya ending inventorygeeda, sababtoo ah xagga hore laga soo iibinaya, marka xagga dambe ayaa mar walba ayaa noqonaya qaybta store ku haraysa haduu xaraba haduusan dhamaanin haduu xaraba. marka tan oo kale xagga dambe laga soo tiriyay 400 iyo 400 waad jeedaa 400 weey 400 waa November 27 waatan November 27 400 baa taala. unit costigeedu waa 300 marka la isku dhufto waa 13 marka la isku dhufto waa 5200 hadaba 400 iyo content maadaama wixii soo haray ahayd November aan haysanay 400 oo unit, waxaan sameynaynaa dib baan u baxaynaa 300 bisha August 24 unityadan haysanay 300 aan soo iibinay ayaan ka jaraynaa kontonka dheeriga aynaan haysanay, sababtoo ah November kuma filo 400 iyo konton 400 baan haysanay, konton baan naga maqan. kontonka markaasi August 24 ka soo qaadanayna waad u jeedaa. marka August 24 konton baa yaala. haddaad isweydiisid marka war konton baad ka soo qaaday waxaa 300 bay markaa ahayd. marka 200 iyo konton ka haray xagay u kaceen 200 iyo konton ku guul la iibiyay bay ku beeri doonaan in Allah sababtoo korka laga soo iibinayay. marka taa la soo helo kontonku waa 12 unit costigiisu ku dhufo 600 baa noqonaya. marka la isku geeyo markaasi unit ahaan marka la isku geeyo waa 450 waa waxay noo soo haray. cost ahaan markii la eegana total costigana markii mid walba lagu dhuftay mid 5200 baa noqonay, midna muxuu noqday 600. labada cost isku geeyo hoosta ka xariiqo waxay noqon 5800. 5800 ayaa waxaan ka jaraynaa 5800 waxay noo soo saaraysaa 5800 agaabta inoo taala costigeeda waxay noo soo saaraysaa agaabta ku taala costigeeda inaad hesho. waxay kuu fududeynaysaa inaad hesho agaabteeda iibisay costigeedii. oo sideed markaa u helaysaa waxaad sameynaysaa 5800 agaabta ku taala costigeeda ayaad ka jaraysaa costigii guud, kadibna costigii guud markaad ka jarto 5800 wixii soo haray ayaad u aqoonsanaysaa inay tahay cost of goods sold agaabta la iibiyay costigoodii. hadaba inoo soo qaad 12000 marka la raadinayo weeye step 2 cost of goods sold. marka la raadinayo waxaa la soo qabanayaa cost of goods available for sale, agaabtii diyaarka oo idin la iibiyo costigeedu markii u horeysay total ahaan imsay nagu joogtay baan oranayna 12000 bay nagu joogtay. hadaba lees waxaad ka jirtaa ending inventory aan xaggan soo saaray waa 5800 hal mar baad xariiqsiin. then waxaad leedahay cost of goods sold agaabtan iibiyay costigeedu ama qiimaheedu waxa uu ahaa 6200 sidaas ayaad ku aqoonsanaysaa. 6200 soo saartay waxay tagi doontaa income statementiga ayay toos u aadi doontaa. income statementiga cost of goods sold iyo qaybtaas toos bay u aadaa. wixii ending inventory oo 5800 balance sheetka ayay iyaduna toos u aadaysaa. marka financial statementiga meelahaas ay ka kala galayaan. hadaba halkan picture kan yar ku siiyo u fiirso. wuxuuna leeyahay agaabtii ending inventory waxa loo yaqaanay waa waxaan color kan marsan yahay. qaybta kalena waa qaybtii la iibiyay weeye 2200 3000 hadda isku geyso waa cost of goods sold waa 6200 bay noqonayaan. dhankan 5200 iyada gartay 5200 waatan November 27 purchasekeedii 400 oo 13 unit costigeeda lagu dhuftaa 5200 ahayd. waxa laga yaabaa isweydiisay 600 xagay ka timiday. 600 waxay ka imanaysaa marka
300 August 24 unit la soo iibiyay ayaa waxaan ka jaray 50 kontonkii mar kontonkaas oo isagu aan nidhi waa store-ku inoo yaalaan kontonka markaan ku dhufanay 12 wuxuu inoo noqday 600 marka waxa casaanka marsani waxay ka dhigan tahay waa kuwii soo haray store-ka inoo yaalay konton xabo xagana iyo 400 xagana store-ka inoo yaalay cost-yadooda marka la isku geeyo waxay noqonayaan marka 5800 gurigan markaasi meesha lagu sawiray waad aragtaa warehouse baa la yiraahdaa waa guriga inventory-ga lagu ururiyo qaybta ending-ka loo waxa weeye aan dhigano weeye marka halkaasi ayuu inoogu haray waa kaas waxa la sawiray inuu albaabkiisii yahay kadib waxa loo yaqaanaa ending inventory marka dusha waa kala laga qoray 5800 bi inagu jooga badeecada warehouse-ka hadda ku jirtay dhanka kale calaamadani waxay tilmaamaysaa in labadani ay yihiin labadan cost ay yihiin cost ending inventory-ga inoo yaala cost-giisii dhanka kale calaamadan dheer oo kuwan bila kalarka ah saddexda isku geynaysa waxay ku leedahay waa qaybtii la iibiyay waa kaasi waa cost of goods sold agaabtii la iibiyay cost-ga inagu joogtay dhanka kalena 6200 bay ahayd waa ka gaarigaasi markaasi la sawirayo sidii isagoo gaarigii la saaray oo kale oo agaabtii warehouse-kii laga saaray kadibna loo sii qaaday cidii laga iibinayay under FIFO marka laga hadlayo since it's assumed that the first goods purchased were the first goods sold iyada oo kaba soo qaadaysa in waa marka FIFO la yiraahdo in iyadoo ka soo qaadaysa marka that is the first goods purchased were the first goods sold in agaabtii u horeysay ee la soo iibiyay ay tahay marka inay tahay marka agaabtii u horeysay ee naga baxday ending inventory intii aan hadda kusoo sharaxayo theory ahaan wariyay marka intan ending inventory is based on the prices of the most recent units marka laga hadlayo ending inventory-ga waxaan hadda markaan ku sheegay koori mar walba ending inventory-geedu wuxuu noqdaa agaabtii u dambeeyay la iibiyay ba ending inventory noqonaysa waa isla intii buu ku sheegayaa ending inventory-geedu based on the prices of the most recent units purchased agaabtii hadda u dambeysay la soo iibiyay prices-keeda iyo cost-geeda iyo unit cost-geeda unbuu noqon doonaa marka ama units-ka u dambeeyay ayay noqon doonaa waxa ending inventory hadda kan markaan u fiirsano units-ka u dambeeyay ba ending inventory noqday 400 oo bishii u dambeysay la soo iibiyay iyo bishii ka horeysay oo de markii 400 kontonkii ka dhinaa aan weynay buuxin weyday bishii u dambeysay wixii la soo iibiyay bisha dambaa loo siqaya marka konton baa loo qaaday marka saas darteed ayuu ku leeyahay ending inventory wuxuu noqonayaa agaabta u dambeysay marka u dambeysay la soo iibiyay that is taas oo macnaheedu tahay why under FIFO companies obtain the cost of ending inventory marka FIFO laga hadlayo shirkaduhu waxay cost ending inventory cost-giisa waxay isugu geeyaan by taking the unit cost of the most recent purchases in ay marka qaataan waxa la yiraahdo unit cost-ga agaabta u dambeysay unit cost-geeda in ay qaataan oo isku dhuftaan tusaale ahaan 400 ee u dambeysay away 400 u dambeysay ayaa unit cost-geeda lagu dhufanayaa sidaas darteed haddii ay unit cost inagu filaan waayo oo halkan 450 baa la rabay 400 ay inagu filaan weydo konton inaga maqan yahay maxaa la sameynayaa and working backward dib ayaa loo noqonayaa dib waad aragtaa waxaa loo siqayaa bisha ku xigta November 27 450 baa ka dhiman waxaa lagu siqayaa marka backward waxa weeye in 300 ee bisha ka horeysay wixii looga baahnaa in laga soo jaro marka wuxuu leeyahay working backward until all units of inventory have been costed units-ka inventory-ga ilaa oo dhammaantood marka la wada buuxiyo oo cost-goodii saas lagu soo saaro oo 450 baan rabnay haddii ay 450 xataa ka badan tahay waxa soo haraya oo ahaan lahaa 900 oo kale de 400 marka 300 u geyso wali 900 ma gaarayso marka ilaa intay ka gaarayso waan sii siqeynaa hadana 200 baan ku sii siqeynaa marka wuxuu leeyahay in this example haddaan tusaaleena u soo noqono shirkaddan Houston Electronics la yiraahdo prices
the 450 units of ending inventory using the most recent prices. 450 unit ayaa shirkadu waxay soo saartay, waxay u isticmaashay sida isagoo ending inventory oo waxayna halkay ka soo saartay waa most recent prices. Most recent prices kuna waa kuwan weeye marka waa waxyaabahan u dambeeyay inventory-gan u dambeeyay la soo iibiyay ayaa ending inventory ka dhigatay. The last purchase marka iibkii u dambeeyay was 400 units, wuxuu 400 units oo costigiisuna ahaa 13 ayuu ahaa oo November 27 ayaa la soo iibiyay. waa ka arkaysay hadda 400 unit ayaa ahaa last purchase-kii. Okay, marka 450 maadaama uu ahaa waxay naga maqan 50 units bay naga maqan. Haddaba the remaining inta hadhay oo 50 units ka ana are priced using the unit cost of the second most recent purchase. waxaa la soo saaraya oo isagana lagaga darsanaya iibkii ku xiga ka oo isaguna kii ugu xigay ama ugu dambeeyay markii 450 dib looga baxo oo 300 kaas ayaa looga jaraya. iibkaas oo maaragtay uu costigiisu markaa ahaa $12 uu markaa ahaa on August 24 ayaa markaasi iibkaasina dhacay. waaye next, Houston Electronics calculates cost of goods sold. haddaba shirkadani cost of goods sold waxay isuga geynaysaa markay 450 kii hesho oo fiirso 450 kii unit markay hesho costiyadeedina ay la dhacdo oo ay sida ku soo saarto ending inventory costigiisa. wax laga rabaa shirkadu inay isku geyso cost of goods sold agaabtii la iibiyay qiimaheedii. waa kan kuu sheegayo haddaad hesho agaabta ku taala costigeeda waxaa ku fududaan inaad hesho agaabta la iibiyay costigeeda. Next, Houston Electronics calculated cost of goods sold by iyadoo markaa maxay sameynaysaa subtracting, waxay ka jaraysaa the cost of units not sold. agaabta aan la iibinin costigeeda ayaa waxay ka jaraysaa waa ending inventory from the cost of all goods available for sale. agaabtii taalay dhammaan agaabtii good ee taalay costigeeda oo 12 kuna. waa intaan aan kuu sheegay cost of goods available for sale ko 12 ayaad ka jaraysaa ending inventory. not sale iyo ending inventory waa isku mid, waa kan halkan bracket ku siiyay waa isku mid weey. marka taas waxa kugu soo baxaya cost of goods sold. Illustration 67 demonstrates that companies also can calculate cost of goods sold by pricing the 550 units sold using the prices of the first 500 units acquired. kan wuxuu leeyahay illustration tusaalahan dambe wuxuu leeyahay haddii aan rabno cost of goods sold inaga oo marin wadadan dheer ee hadda waa inaad horta soo saartaa baa lagu yiri ending inventory-ga. waa in qof loo diraa store-kii kadibna uu noo soo tiriyaa inta unit ee taala kadibna la yiraahdaa unit-yadan costiyadooda maxay ahaayeen costiyadoodii lagu dhuftaa kadibna costiyada la isku geeyaa total cost sida lagu soo saaraa. total costigaasi ending inventory-ga laga jaro total available units available for sale cost available for sale kii oo 12 kuna in laga jaro kadibna waa wada dheer weey. marka wadada dheer inagoon marin ayaa waxaan samayn karaynaa agaabta la iibiyay qiimaheedii ayaan soo saari karaynaa iyo costigeena u joogtay. oo marka maxaan sameynaynaa 500 oo unit ayaa la ina siiyay 500 oo unit kii la siiyay baa waxaan sameynaynaa marka waxaan ku dhufanaynaa marka price-yadoodii iyo cost korkaan ka soo bilaabaynaa. hadaan ka soo qaad store-kii baa la tiriyay kadib waxaa la ogaaday in 450 taalo 450 markii la ogaaday waxaa la sameynayaa waxay taas macnaheedu noqonaysaa 550 xabba la iibiyay bay noqonaysaa. marka 550 ka xabo xagan baa laga soo tirinayaa costiyada la dhacaya 100 halkan inoo yaala 100 ka ku dhafaadonaysaa 50 giisi 10% $10 kiisi marka kun bay noqonaysaa ay 550 kii 100 baad ka haysaa oo gudub next purchase-ka oo April ah waa 200 isagana ku dhufo 12 2200 marka haddana waxaad haysaa 300 baad haysataa unit-yada heshay hadda wali 300 marka 550 maada gaarin waxaad u baahantahay inaad u gudubto next-ga oo bisha next purchase-ka oo August 24 waxaad leedahay marka 300 ayaan marka u geynayaa 300 marka aad wada geysid suuragal ma noqonayso oo tiradii 550 baa loo baahnaa 550 kii marka 50 baa dheeri noqonaya
marka si kontonka dheeriga noqonaya waa kontonkii aad garanayso inuu ending inventory ku jiray kontonkan oo ah si aad suga reebto waxaad leedahay 350 kan konton iga daayo 300 unit konton iga daa marka 250 bay noqon 250 baa saagu dari 550 250 price-keedu waa 12 unit cost-geedu 200 unit cost-geedu waa 12 boqolka unit cost-giisu waa 10 mid walba marka unit cost-giisa la dhacaysa kadibna waa isku geynaysa cost of goods sold dhigana noocaas ayaad soo saaraysa waa kan marka wuxuu ku note that of 300 units purchased on August 24 300 units ka la iibiyay waa kan aan hadda ku sheegayo ma wada geli karaan meesha sababtoo 600 bay tagaysaa only 250 units are assumed sold 250 ayaa laga soo qaadaya in la iibiyay this agrees tani waxay waafaqaysaa buuri with our calculation of cost ending inventory ni markaan ka shaqeynayna the cost of goods sold dhiga aan soo saaraynay de waa inagii 50 ga aan ka dhignay ending inventory inuu yahay marka where halkaasoo 50 of these units were assumed unsold and waa inagii maaragtay soo sheegnay in konton xabo aysan ahayn wax aan la iibinin oo ay tahay oo ending inventory ahaan aan u isticmaalaynay aan ka soo qaadayn okay oo sidaas darteedna de loogu daray ending inventory haddaba eegada cost of goods sold ayaa hadda ending inventory isagoo la raadinaynin oo aan wax laga jarjaraynin baan soo saaraynaa waxaan leenahay January koodeedii 100 xabo ahayd 100 xabo noogu dhufo halkan waxaa la rabaa total unitka inay soo baxaan 500 unit baa la iibiyay dhanka cost-gana waa inay soo baxaan cost-gii inagoo ending inventory marayna step-yadii labadan step inagoo ending inventory isticmaalayna maxay noo soo baxay 6200 haddaba inagoo inta isticmaalayna waa inay isla sidii noo soo baxaan marka waxaan leenahay marka January koodeedii 100 unit ayaa la iibiyay $10 ugu dhufo 1000 bay noqonaysaa April 200 unit bay ahayd 12 ugu dhufo 2200 August waa 250 oo soo kay 300 ahayd 50 waxaa lagu yiri ending inventory waa lama ba iibinba 250 baa laga iibiyay bas 12 ugu dhufo 3000 bay noqonaysaa unit aan isu geey waa 550 okay unit-kii ku saxsan yahay 600 haduu noqon lahaa oo halka 50 ayna ka reebi lahayn waxba khaldami lahaa marka leen dhanka kale waxa isku geynaysaa total cost-ga oo aha muxuu ahaay cost-yadoodii markii la isku geeyo muxuu noqonayaa agaabta la iibiyo cost-geeda muxuu inagu joogayaa 6000 iyo 200 ayuu inagu joogayaa haddaba inagu xeerkii hore maray ayaa result-goodu isku mid noqonaya oo kan wuxuu inay 6000 iyo 200 weeye inagu ending inventory kadibna isla dhacnay cost-yadoodii total cost-goodii kadibna aan ka jaray cost available for sale-kii meeshii yaalay goods available for sale-kii kadibna markaan ka jaray cost of goods sold inoo soo haray waa isku mid un marka xeerkaana waa wada kale oo mari karaysa marka waayahay marka first out ku waa xeerka tilmaamaya in shaygu ku horeeyay la iibiyo shaygu ka dambeeyayna oo inta badan noqdo waxa la yiraahdo ending inventory marka faaqideeda la sameynayo labadooda ama saddexdooda lagu sameynayo midkee faa'iido badan midkee khasaaro badan keeba keeni karaya cost badan keeba cost yar keeni karaya asharaanta dambe ayaan uga hadli doonaa laakiin hadda waxa intaasi ku eg waa xeerkii u horeeyay loo yaqaanay first out marka fiifoodan wax kale looma soo gaabinin waa first in waa shaygii ugu horeeyay ee soo galay soo iibinay ayaa first out noqonaya shaygu ku horeeyay ayaa la iibinaya intaas un baa laga wadaa taasana la soo gaabiyay casharkana markaa cashirkii 9aad ayuu ahaa intaan ku kulmayno cashirka xiga intaan ku kulmayno. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.